طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa deriskeenii toddobaad ee barnaamijkeenii tajwiidka qur-aanka iyo habka saxda ah ee qur-aanka loo akhriyayo ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam loogu akhriyay, isaguna uu saxaabadiisa ugu akhriyay. waxaynu maalmahan wadnaa casharadeenii ku saabsanaa xuruufta luqada carabiga ee qur-aanka kariimkiina ku soo degay iyo meelaha ay ka soo baxaan. waxa uu ahaa deriskeenii ugu dambeeyey ee lixaad ee aynu soo qaadanay xuruufihii aynu ka warramaynay. waxaa ka mid ahaa alxuruuf alxalqiya, xuruufta ka soo baxda hunguriga ama dhuunta ka soo baxda, oo aynu 6 xaraf ku sheegnay oo kala ahaa hamza iyo haa iyo cayn iyo xaa iyo hayn iyo khaa. intaas ayay ahaayeen. maanta waxa aynu bilaabi doonaa mawdic kale ama makhraj kale oo almakhaarij alcaama iyo almakhaarij alkhaasa baynu soo sheegnay. almakhaarij alcaama oo kutubta tajwiidka qaarna ay qoraan almawaadic, goobaha waaweyn ee ay xuruuftu isugu soo ururto qololkeedu, oo sawirkaynu bixinay ahaa marka ugu horeysa 5 guri oo waaweyn baa jira, guri walbana qolol buu leeyahay. marka waxaynu maanta bilaabi doonaa makhrajka ama mawdica caamka ah ama guriga weyn ee loo yaqaano carabka iyo qololka ka dhex samaysan carabka iyo xuruufta ka soo baxda. carabka oo aynu wada garanayno waxa uu leeyahay 10 meelood ama 10 qol oo kale ah, 10 goobood oo kala duwan ayuu leeyahay oo carabka guud oo xuruufta ka soo baxdo. xuruufta ka soo baxdaana waa 18 xaraf ayay noqonaysaa. marka aynu leenahay carabka oo gurigii weynaa weeye. carabka waxaynu u samaynaynaa guriga weyn qololbaa loo sameeyaa. waxaynu u samaynaynaa 10 meelood ama 10 qol oo kale. 10kaa qolla waxa aynu gelinaynaa 18 xaraf. marka aynu halkaa marayno waxaa muhiima in la fahmo in carabku yahay ka saddexaad ee aynu ka warrannay. waxaynu ka soo warrannay xuruuftii ka soo baxaysay bannaanka, inta bannaan ee afka iyo hunguriga oo xuruufta madka la yidhaahdo. aqalkaasi waxaa la odhan jiray, iyo gurigaa isagaa waxaa la odhan jiray aljawf. waxaa kalooynu ka soo warrannay alxalq, guri la yidhaahdo ama fayl aynu samaynay magaciisa alxalq, dhuunta, oo iyadana aynu nidhi 3 qol ayaynu ka samaynay. waxaana ka soo baxaa 6 xaraf. carabku waa ka saddexaad kanaynu maanta ku jirnaa. waxa weeye baalle waa guriga ugu ballaadhan ee xuruuftu ka soo baxdo. waa halka ugu badan ee xuruufi ay ka timaado. waa makhrajka caamka ah iyo guriga ugu weyn ee qololkuna ugu badan yihiin, xuruuftana ugu badan tahay. waxaynu sheegnay xuruuftu goobaha ay ka soo baxda iyo qololku inay 17 yihiin. 17kaa 10 ka midi waa carabka. si kale marka loo dhigo 10kaasi marka lasii ururinaya waxaa la yidhahdaa 4 bay u qaybsamaan: aqsa allisaan, wasad allisaan, xaafat allisaan, daraf allisaan. intaasay u qaybsantaa. aqsa allisaan, carabka halka ugu shishaysa, waa halka u xigta hunguriga, halka u shishaysa ee carabka ee u xigta
hunguriga aqsa lisaan ayaa la halka ugu fog wasada lisaan carabka bartankiisa bartamaha carabkana xuruuf baa ka soo baxda xaafata lisaan dhinacyada xaafata lisaan dhinaca ayay markaa noqonaysaa dhinaca carabka isagana xuruuf baa ka soo baxda iyo tarafa lisaan caaradana hore iyadana xuruuf baa ka soo baxda marka 10 meelood waxay ku soo ururayaan marka si kale loo dhigana 4 meelood oo ah halka carabka u shishaysa bartanka carabka dhinacyada carabka ama dhinaca carabka iyo dacalkan hore iyo caaradan sake ee carabka waxaa ka soo baxa halka u shishaysa oo carabka ah carabka halkiisa aqsa lisaan carabka halka u shishaysa waxaa ka soo baxa 2 xaraf oo kala gala 2 meelood ama 2 qol ama 2 makhraj bartanka waxaa ka soo baxa hal qol bay leedahay hal qol oo qura weeye hal meel makhraj qura waxaana ka soo baxa 3 xaraf xaafada ama dhinaca carabka 2 qol ama 2 goobood baa ka samaysan waxaana ka soo baxa 2 xaraf caarada soke 5 qol ayaa lagu soo ururiyaa waxaana ka soo baxa 16 xaraf intaas waa duuduub carabkii oo aynu soo ururinay ayuu noqonayaa imikana waxaynu gudageli doonaa inaynu hoos ugu yara dhacdhacno bal xuruufta iyo halka ay ka soo baxaan habka loo tijaabinayna waa habkii duruustii hore aynu u tijaabinaynay xarafku halka ka soo baxo oo ahayd xarafka marka laga hadlayo in la reebo hamse la hor dhigo hamsadu xarakada doontaba ha yeelato dabeedna inta la reebo ama la shadaba in lagu dhawaaqo halka xarafku ku go'o hadduu muxaqiq yahay meel rasmi oo ku go'a iyo hadduu muqaddar yahay meel soonaheeda uu geli karo ayaa waxa uu noqonayaa halkii xarafkaasi ka soo baxayay haddii haddaba aynu gudagallo waxaa laynaga doonayaa inaynu carabkii oo gurigii weynaaya ama bangaladii ah inaynu 10 goobood ka samayno ama 10 qol ka samayno 18 xarafna u qaybino taasaan jecelahay waana halka muhiimkee la doonayo maadaama imka sharaxii aynu hoos ugu dhacdhacanay in aad loo fahmo waxaynu ka soo bilaabaynaa carabka halkan soo ka bilaabaynaa xagga shishe carabka ee hunguriga xigta ayaynu ka bilaabaynaa aqsa lisaani carabka halka ugu fog acni abcada wa halka ugu shaysa mimma yali alxalq ee dhuunta xigta waxa raaci karta inta ka sareysa ee dhanxaraga sarayna waa ay raaci kartaa xaraf quraana ka soo baxa qaafka alqaafu aqa qaafka xarafka la yiraahdaa waxa uu ka soo baxa waa xuruufta carabku leeyahay xarafkaasi qaafka la yiraahdo laakiin qolka uu ka soo baxa waa qolka u shisheeye ee carabku leeyahay qaaf marka tijaabinayso hamse hor dhig dabeedna qaaf reeban ama shadan same aqa waxaa halkaa ka soo baxa xarafkaas oo qura markaa halkii u shishaysay carabka hal qol baynu ka samaynay hal xaraf oo qurina weynoo galay oo qaafi sidaas darteed waa inaad dareensanaataa markaynu halkaa marayno farqiga u dhaxeeya qaynka oo aynu xuruuftii dhuunta ku soo marnay iyo qaafka waa 2 xaraf oo isu dhow qaynku waxa uu ka soo baxaa dhuunta halka ugu sareysa ee xaggeena soo xigta qaafkuna wuu ka soo sokeeyaa carabkiibuu ka soo xigaa laakiin carabka halka uu shaysa weeye iyaga isku xiga waa 2 xaraf oo halkay guryahay ka soo baxaan sida ay soo haystaan oo ay jaar yihiin laakiin qaynka waa xagga dhuunta qaafku waxa weeye waa xagga carabka oo u shishaysa sidaas darteed dadka qaar way iska galaan marka ay akhriyayaan luqada carabiga ay carabi caadi akhriyaan ama quraankaba marka la akhriyayo aayadda runtii kala saarta ee labada xarafba ku soo arooreen waxa ay tahay runtii ardaydana in aad loogu tijaabiyo ay tahay aayadda quraanka ee ku jirta fi suurati wan-najmi idha hawa ilaahay wuxuu wa annahu huwa aghna wa aqna tahore waa ghayn waa
غين أغنى حرف كدنبي قاف كنا وحكوتنا أقنا معنى هان ساسي وكل دوانانيا آخر صهان ويكل دوانانيا مركا وحين إمك هينا سيدي تمنكي حرف باي نجا هري وعربك هلك أوقف كهري تمنكي قل عرب كلهانا أما تمنكي مخرج عرب كلهانا وحين نجا هري هل مخرج أو قلي أو نقضي عربك هلك وشيسة قلك اللباد أما مخرج كاللباد وحاو كسو حقاون هلكا قافك أينو كسو صاري أنبو إير حقا سوكي أفكا أينو كشرابنو أينو كعنو مركا نفورسينو دولك أدو أيو كسو حقاون وحلو في جاري هايون حرفكاني حرفكا قافك سيدو قافك ولا جارها غينك أو أسو سوكية حروف تا اللهم صل على محمد دون تكسوبها حرفكاسي وحرفك لو يقانو كاف 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 أك كاف وحرف كاف لو يقانو إساقو ومخرج كي قافك أنبو إير حقا سوكك سوحيقاون waxaanu leeyahay sifa aynu dhigan doono iyo tilmaamo leeyahay oo wayn neef soo baxda ak waa neef soo baxda akka marka qaafka iyo kaafku waa laba xaraf oo laba qol oo isku dhajisan oo carabka xagga u sheeysa ah ka soo baxa laakiin kaafku ka soo sokeeyo waxaynu haynaa laba xaraf iyo laba guri ama laba qol baan jida ayaynu haynaa guri qolka saddexaad ee guriga carabka ku jira waxa weeye wasata lisaan carabka bartankiisa inta la siman ee dhan xaraga sarayna waa runtii way raacsan tahay hal guri waxaan jira hal qol oo qura ama hal makhraj oo qurana weeye carabka bartankiisa waa hal qol ama makhraj waxaase ka soo baxa saddex xaraf saddexda xaraf waxa la yiraahdaa aljiimu ashiinu alyaa'u saddexda weey jiim shiin yaa saddexda weey yaada marka aynu ka hadlayno xarafka yaa marka aynu ka hadlayno waa yaada loo yaqaano غير المادية ويادا aan xuruufu madka ahayn yaada xuruufu madka noqota oo aynu shuruud u sheegnay duruusteennii hore ayaynu ku soo sheegnay waxaanay ka soo baxdaa goobta iyo makhrajka caamka ah iyo guriga loo yaqaano ayay ku jirtaa aljawf yaada reeban yaa kasta oo reeban oo kasra ka horeeya waxa loo yaqaanaa yaadii xuruuful madka kamidka ahayd taasi waxay ka soo baxdaa meel kale casharada horena ku sheegnay yaadani waa yaada ama xarakaysan fadxa haday doonto ha yeelato kasra ha yeelato dhamma ha yeelato haday doonto ha noqoto haba reebanaato laakiin fadxa waa ka horeeyaba waa inaanay noqon yaa reeban oo kasra ka horeeyo tusaale ahaan haddaynu soo qaadano ya reeban oo aanu kasra ka horeynin مثلا fatxa ka horeeyo khayr shay'un yawaddu kuwaas ayaa runtii noqon kara oo labada tusaale hore ay yihiin laba ya oo reeban tabana ay tahay ya fadxaysan tusaalayaasha waayada noocyadeedii ayaa ay noqonaysaa sidaas darteed yaa marka laga hadlayo yaani iska kaagelin oo yaadii sawtii markii hore laga soo waramay yaadaasina waxay tii xuruuf madka kamid ahayd ee reebanayd ee kasruhu ka horeeyay yaada imanka aynu ka waramaynaana waaye ama fadxaysan ama kasraysan ama dhamaysan ama reeban laakiin kasra aanu ka horeyn labada xaraf ee kale waa jiim iyo shiin shiinka iyo jiimka labada xaraf waxa muhiim ah walaalayaal inaynu dareensanaano habka loogu dhawaaqayo khaasatan jiimka jiim
innaga marka lahjadeena iyo luqadayna ku hadleen la eego jiimkeena jiim bayna joog jiid hadiye jeer neefaa socota waa dareemsa ayaa loo akhriya inaga teena luqadayna laakiin marka luqatul qur'aan lagu hadlayo ee la doonayo quraanka in la akhriyo jiimka aad baa loo adkaynaya sifooyin tilmaamo gaarana waa la raacinaya codka waa la joojinaya waxa kale laga ilaalinaya inay hawa soo raacdo marka xarafka jiimka lagu dhawaaqayo aj waa xuruufta inoogu adag mid kamidana aj hadaa tiraahdo aj hadaa tiraahdo waxa weeye may qalad baad ku jirtaa idaa jaa ajaluha hadaa tiraahdo waa qalad waa inaad tiraahdo idaa jaa ajaluha idaa jaa nasrullahi walfath waa inaad tirahdo shiinka isaga waxa uu leeyahay oo aynu ku dhigan doonaa sifa la yidhaha tafashi yacni hawo carabka gudihiisa ku faafaysa ayaa shiinka raacda markaa saas darteed shiinka marka lagu dhawaaqayana waa in neeftaa lasoo raaciyaa waxaynu se ku dhigan doonaa sifaadka duruusteena soo socota shiin waa inay neeftaasi muuqata shiin kalfaraashi lmabthuuth almanfuush waa in shiinka isagana ay neefta iyo hawada runtii carabka ku faafaysa ee carabka oo dhan qabsanaysa waa inay soo raacdaa yaa iyadu way iska fududahay markay keliya tahay ya looguma dhawaaqay yaa baa la yidhaahdaa marka wax lagu xidhayo laakiin xarafka lagu xidhayo alifta waxa waa laga goynayaa waxaynu hadda maraynaa carabka bartankiisii waxaynu ka nimid oo kelmadihii xuruuftii horena ay ku saabsanaayeen xagga shishe ayay iyaguna huseynayeen qolka afraad ama makhrajka afraad iyo goobta xarafka afraad uu ka soo baxaa waxa weeye dhinaca carabka ama labada dhinacba dhinac waxaynu u jeednaa waa dhinaca marka matalan halkaa taaganahay dhinacaygaa midig jihadaasi carabka ee dhararan waa dhinac baa la odhanayaa dhinaca kalena waxaan leeyahay waa dhinac kalaa la odhanayaa laakiin xaggan hore caaro ayay noqonaysaa iyo darafkii soke waxaa ka soo baxa carabka dhinaciisaas oo dhararan oo gowsaha sarena qabsanaya maha gowsaha hoose dhararan iyo carabka labadiisa dhinac hadduu qofku labadaba mar iswada raacin karo iyo hadduu xagga dhinaca bidixda u badin karo oo keli ah iyo hadduu dhinaca midigta oo qura ka soo saari karo xarafka ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa xarafkaas dood ayuu noqonayaa dood waa xarafka la yidhaahdo dood oo goobtaa leh mar labaad haddaynu ku celino waxaa la yidhahda waa xarafka ugu adag carab iyo cajamba carab iyo cid aan carab ahaynba xarafka ugu adag weeye xarafkaa isagaa culimaduna way sheegaan alimaamu shaatibi ayaa soo waday isagoo ka warramaya xarafkaa wuxuu wahwa ladayhima shadri buu halkaa kusoo jaray yacizu wa bilyumnaa yakunu muqallala buuli waxa weeye xarafkaa doodku dood waa xaraf runtii u baahan in badan loo fiirsado marka la akhriyayana aada iyo aad in la dhugto ay tahay waayo suuratulfaatixa ayuu ku jiraa salaad walo aynu tukanayno wala dallin baynu leenahay doodkaas saddexba way kuu bannaayin arrimood horta dhinacyada ayaa inta badan baawarka la saaraya iyo awoodda la saaraya dhinacyada carabka labada dhinac haddaad ku qabato labada gowsood ee hareeraha ee sare carabkana sidii wax kor u qaadayo xagga sare raacaya aad ka dhigto oo aad taa soo saari karayso way ku wanaagsan waa caadi waa wanaagsan waa bannaanta haddii aanad labadiiba mar ka soo wada saari karayn oo aad xagga bidixda oo qura ka soo saartana
وعادي أو لمد هدي أنا حق بدح أوكعين مديك أنت هذول اللي حس عربي جوسها إن عميدك تنا أتكوك أو تيسرع أو أتكسر صارتنا ويكون بنانتي صدح دبا إنك جدك إن يوم مضى ما أنت عالم ككونه اللي واحد أوبا أنت هاي لنا عبدح عرب كعاردي سا لنا عاد واحد يدعى الكا واحد شيء لنا عبدح ده أيها واحد لو قبنا أيها جوسها سريع لأن أديك الصدا وحيا وعرب كنا كوتا جن يهاي أيها كل واقسة ضاد 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 أيضا نص أب أيضا نص إن وحوبها هي المعلمين تأدي وجود دالان أرضنا مركز أقول جيان وايو وهلك وحرف هذاك حرف كذاك بعدنا السورة دي اللي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سلاد ومتر ثقف كان سورة الفاتحة آخرين بوكترة مركز إن وجود دالان ومن مهمة إن مركز إنه هلك أمرينه وحين قلنا كيشنات حرف كاس شناد وحن كذا مخرج كاس شناد هي حروف كسب بحدنا درس كين كحيجة أين إن شاء الله تعالى كجو رمي دونا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرجوا هذا صعب كرجوا هذا وارتا ستدوي كنت معه طبعا مركين وضنا أي لا دمية طبعا من نبي خلاص قبله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس كيني سديدات برنامج كيني تجويد كقرآنك يهبك قرآنك الله أخري أيو وحاينو كسو جرني ولا ليال دروسي aynu kaga warramaynay xuruufta luqada carabiga iyo goobaha ay ka soo baxdo dariskii ka horeeyay waxaynu dhex galnay gurigii iyo mawduucii iyo goobtii ugu ballaadnayd ee xuruufta inta ugu badani ay ka soo baxaysay waa guriga carabka loo yaqaano oo xuruuf badan oo 18 gaaraysa ay ka soo baxaan carabka isla markaasna 10 meelood oo carabka kamid ay ka soo baxayeen afar goobood ayaynu ka soo warranay oo kala ahaa carabka halka ugu fog oo uu ka soo baxo xarafka qaafka loo yaqaana iyo halka u fog laakiin ka yara sokaysa oo xarafka kaafka la yiraahdo uu ka soo baxayay carabka bartankiisa oo ay saddex xaraf ka soo baxayeen jiim shiin iyo yaa iyo dhinacyada carabka midkood labadooda ku doonaba ha noqdee oo xarafka adag ee daadku uu ka soo baxayay waxaynu maanta ka bilaabaynaa insha allahu tacaala makhrajkii iyo goobtii shanaad ee ka mid ahaa qolalkii gurigaa weyn ee carabka u lahaa waana xarafka loo yaqaano laam waxaan baraarujin lahaa waxaan qowlka inagu aynu qaadanay wuxuu ahaa 17 qol ayaa ay xuruuftu ka soo baxdaa culimada qaar ayaa waxay qabaan intaa in ka yar imaka imaamu ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala wuxuu qabaa laam ra nuun inay kala yara duwan yihiin culimada qaar baa waxay qabaan saddexdaa xaraf inay meel ka soo wada baxaan caarada hore carabka oo dhanxanaga sana taabarnaysa inay ka soo baxayaan ayay culimo badani qabaan culimo kamid ah culimada laakiin ibnu al-Jazari iyo aqlabka jumhuurta iyagu waxay qabaan inay kala yara duwan yihiin farqiga u dhaxeeya wuxuu noqonayaa farqi aad u yar marka arrinkaasi wuu iska sahlan yahay haddii saddexdaa xaraf qofka meel ay uga soo wada baxaana dhibaato kuma jirto
haddii sida culimadu ay usii kala saareen ay uga soo baxdana dhibaato kuma jirto. xarafka laamka la yidhaah laam waxa uu ka soo baxaa ayaa ay culimadu leeyihiin dhinacii carabka aanu sheegnay xaggiisa soke ee caarada xigta ayaa waxay qabsanaysaa xagga sare ayay u kacaysaa ee ciridka iyo carabkii dhinaciisii qayb ka mid a oo xagga sare isula kacay xagga ciridka isula kacay ayaa ay ka soo baxaysaa waa laamka al caaraduna kama maqnaanayso. sidaas darteed ba culimada qaar waxay leeyihiin mar hadday caaradiiba soo gelayso laam iyo roo iyo nuun isku mid aynu ka dhigno alla waxaad iska yeelan kartaa allah ood meelaha qaarkood ama meelaha weyna meelaha alla aad tiraahdo yarayso. xarafkan laamka la yidhaahdaa iyo xarafka rooa la yidhaahdaa labadaasi oo nuunkuna ka saddexaadee berha soo raacaya soonaha soo geliya uu yahay. laam iyo rooa waa laba xaraf oo calaamadaha ay leeyihin ay ka mid tahay marna in la weyneyn karo marna la yarayn karo. marka shuruuda laga helana waa la weyneeya, marka shuruuda laga helana waa la yareeya. sidaas darteed waxaa muhiima inuu qofku u fiirsto oonu iska weyneyn meel aan weyneyn xarafka ama aanu yarayn meel aan yarayno labada xaraf ka mid ah. in sha allahu tacaala waaynu sharxi doonaa markaaynu halkooda gaadhno. marka xarafkaas laamka oo culimada qaar ay leeyihin maadaama xaafadii waa dhinacyadii ka mid a ayuu ku jiraa bay leeyihin, maadaama uu ku jiro laam kuma jiraan nuun iyo raa iyagu waa caarada hore. sidaa darteed way ka duwan yihin bay leeyihin oo iyaguna culimada le way kala tirsan yihin. weliba nuunka iyo raaduna iyaguna way sii kala tegsan yihin oo iyagana waxbaa u dhexeeya ay culimadaas laftigoodu waxay waa culimada 17 ka dhigaysa. marka haddaad doonto carabka caaradiisan dhinaciisan hore dhinaca bidix hadduu kuu noqdo iyo dhinaca midig hadduu kuu noqdo labadaba culimadu way bannaan yihin bay yidhaaheen. haddii labada dhinac oo xagga hore ah oo caarada usoo dhow labadaba uu laamka markuu ku dhawaaqayo xagga sare ciridka ay qabsadaanna wax dhibaato a ma leh. taana runtii waa arrin muhiima oynu sheegin arrinku uu fudud yahay laakiinse waxa way qofku inuu dareensanaado unbaa muhiima. laam marka xaraf la yaraynayo marka xaraf la weynanayo waynu dhigan doonaa, laakiinse haddaynu in yar sii qadino marka xaraf la yaraynayo waxaa la doonayaa un carabkaa la kala furaa un. markaad doonaysa inaad wax yarayso, markaad doonaysa inaad weynaysana waa laisu soo yaro dhaweeya. waa intaa ardaydu taa ha dareensanaadaan. xarafkaa hadduu ku dhaha macallin weyne xarafkaasi wuu weyn yahay afka isu soo dhawey, hadduu ku dhahdo yareena afka kala furo kala yaro durki. waa intaasun yarayntii weyninta farqiga udhexeeyaaba waaba intaasun. فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ